waxaa runtii aan rabaa inaan meeshaan aan ka idhaahdo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinteenu waxaad tihiin wejigii ummadda Soomaaliyeed ayaa tihiin oo aad iyo aad runtii aan idinku mahadcelinayo sida aad u shaqayseen waxaad tihiin iibgeeyayaasha kuwa iibgeeya magaca iyo maqaamka dalkeenna idinka ayaa iibgeeya waxaad tihiin matalayaasha iyo difaacayaasha danaha iyo masaalixda dalkeenna ayaa tihiin waxaan garowsanahay duruufaha adag ee aad ku shaqaysaan waxaan idinku ammaanayaa adkaysigiinna iyo waddaniyaddiinna waxaad se ogaataan waxaynu ku taagannahay jidkii ama dhabbihii aynu duruufahaas adag uga bixi lahayn marka waxaa laynaga rabaa adkaysi iyo inaan cagaha dhulka waxoogaa ku hayno waana ka bixi doonaa insha allah waxaan ammaan u soo jeedinayaa wasiirka wasaaradda Axmed Macalin Fiqi oo muddadaas sanadka ay u joogay runtii aan ahayn oo kaliya wasiir arrimo dibadeed laakiin kaga duwanaa ama waxoogaa kaga duwanba wasiirada inta badan inuu yahay wasiir afar kala oo dhowr dhinac ka dagaalama dhowr jiha ayuu ka dagaalamaa marka aad iyo aad ayaan runtii ugu mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed waxay markhaati ka yihiin sidii runtii uu ugu adkaa ee uu uga shaqeeyey habeen iyo maalin asaga oo gacmaha iyo lugaha iyo afkaba ku dagaalamaya arrintii MOU-ga waxaan hubaa wasiirku qof kasta ayba dhaliilo leeyahay laakiin Axmed Macalin Fiqi wixii ka qaldama laakiin waxaan hubaa inuu yahay nin mukhlis ah oo aad iyo aad u jecel dalkiisa iyo dadkiisa aniga Axmed saaxiibaan nahay xilliyada ka midana waxbaan wada baran jirnay marka waxaan aad ugu aqaanaa nin firfircoon oo aad iyo aad u karti badan marka waxaan hubaa in uu shaqada loo diro inuu ka soo baxayo aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay runtii madaalanimadiisa iyo shaqadiisa adag oo uu asalka u leeyahay wasiir Cabdisalaan hawl fudud ma hortaalo hawl aad culus ma hortaalo laakiin waxaan ku ogahay aqoon karti xirfad iyo hufnaan runtii u suurta gelinaysa in uu shaqadan asaguna si wanaagsan u qabto labada wasiir waxay isaga egyihiin waan dhowr jeer baan rarnay waan soo rarnay wuxuu hogaaminayay qaybta socialka oo dhan ee dowladda wasaaradahaas iyo hay-adahaas ayuu hogaaminayay wax weyn ayuu ka bedelay muddadii koobnayd waxaan aad u jeclaystay runtii markuu hadda xilka wareejinayay qorshaha uu soo gudbiyey la xiriira qaybta socialka ee wasaaradaha oo ku xiran NTB-gaas oo aan rajeynaya ilaahay idinkiis inaynu hirgelin marka aad iyo aad buu u mahadsan yahay isagana waxaan rajeynayaa inaad gacmo fara kusoo dhaweysaan oo la shaqaysaan waxaanse ku adkaynayaa meeshaan wasaaraddan waxaynu sheegnay inay tahay muraayadii ummadda Soomaaliyeed waxaynu sheegnay inay tahay meeshii dalka Soomaaliya laga difaacay waxaan sheegnay meeshii masaalixda ummadda Soomaaliyeed ay ka soo galaysay ee lagu keenay waxaan u baahannahay wasaaraddan reformka socda
in la sii xoojiyaan u baahannahay reform aad u xoog badan ay wasaaraddan u baahan tahay wasaaraddan waxay u baahan tahay in diblomaasiyiintii si fiican loo bisleeyo oo moralkana loo dhiso lana tababaro waxay u baahan tahay in corruptionka waxaan ka wada xoolo ma ahee waxyaabaha kale ee aan habboonayn ee daalac naasilka in laga tirtiro wasaaradda arrimaha dibadduna waa meeshii aan rabno in arrintaas lagu dabaqo xeer bay gaar ay leedahay lagu maamulaa jira wasaaraddan xeerkeeda in lagu maamulaa rabnaa inaan laga deginaan rabnaa wasaaraddan shaqaale ku meel gaar ah inuusan dhex jooginaa la rabaa shaqaalaheedu waa civil servant xeer lagu maamulay leedahay oo foreign service oo asaga loo yaqaano xeerka in lagu maamulaa la rabaa